waa kuma cidda dhalinyarada message-ka u soo dirtay Isabella maxay sheegi rabtay cidda dhalinyarada isku ballamisay waa ayo sababta albaabku u xirmay una furmi waayay maxay ahayd yaa lahaa raadkii mucjisada ahaa Alex maxaa ku dhacay maxay tahay sababta uu mar walbaba keeda u helayay shay naxdin leh wax walba oo dhacay ma waxaa sameeyay hal qof oo kaliya mise hal qof ka badan maxayse tahay sababta uu sameeyay qofkaas muxuuse bedelkeeda helayaa ugu dambayn yaa albaabka ka soo baxay sidee buuse uga soo baxay warkii la yaabka lahaa ee ay ciidanku sheegeenna maxaa ka jiray yaa sameeyey waxaasoo dhan hadalka niyadda ku hay qof walba oo aad ka shakin doontid intaynu sheekadan ku guda jirno ma ahan qofka saxda ah assalaamu calaykum waxaan ahay managerka halkaad iga dhegeysanaysan managerka waxaan soo gudbiyaa sheekooyin kala duwan hadday noqoto dembi baaris caalamul jin wasix shirqool aargoosi dilal taariikh iyo kuwo kale oo xiiso badan qaab dhegeysi ah waxaan ku leeyahay soo dhawow waynu jeclaan lahayn haddii aad nagu soo biirtid iyo haddii aad muuqaalka leeg saartid labadaba mahadsanid 9 dhalinyaro ah oo dhigata dugsiga sare kana mid ah dhalinyarada ku jirta social media duuduubana muuqaalo qof iyo marmarka qaar wada jir badankoodu isku qaraabo maaha isku wadamo maaha isku jir iyo isku midabtoona maaha kaliya waa dad waxbarashada muuqaal samaynta iyo luqaddu ay saaxiib ka dhigtay waa 5 gabdhood iyo 4 wiil magacyadooda aan idin baro gabadha koowaad waxaa la yiraahdaa Sophie gabadha xigtana waxaa la yiraahdaa Lana gabadha xigta waxaa la yiraahdaa Sydney wiilka xiga waxaa la yiraahdaa Kaydo wiilka ku xiga waxaa la yiraahdaa Alex tan xigtana waxaa la yiraahdaa Isabella Aadan Dayna iyo Lizzie maalin kamid ah maalmaha weekendiga ayay Isabella u timaaday saaxiibadeed intii kale iyagoo wada fadhiya oo u sheegtay inay soo heshay meel ay ku duuban karaan muuqaalo for free meesha waxay tiri waxay u samaysan tahay qaab cabsi ah laakiin cabsi ma anaga ka dhiganayna sidaa darteed haddii meeshaas la ii soo ogolaado istiyaariya waynu gelaynaa intii kalena ku farxeen oo waxay dhaheen maalmaha ka soo wareegatay maalmahaasna asxaabtu sidoodiiba isugu imaan jireen wax u duuban jireen waqti u wada qaadan jireen da'adooda midka ugu weyn waa 19 jir ilaa 20 jir qofka ugu yarna waa 16 jir ilaa 17 jir laakiin iswada la eegooday si fiican loo wada kuriyay group WhatsApp-kii ay lahaayeen asxaabtu baa waxaa la soo dhigay qoraal ah waana la aqbalay waanuna aadi karnaa meesha sababtiis marka hore u aadayna waxay tahay badankood inay underage yihiin hadda marka waa la wada ogolaaday dhammaantood baa ku farxaanay laakiin bal hadaladii ay dhaheen aynu isla eegno ee ay jadka ka bixiyeen intii ay wax qorayeen Sophie waa ugu horeysay oo waxay tiri waa fan bilaa lacaga oo free ah oo aan la heli karin aslanba oo ku haystaan uu marka diyaar baan ah Kaydo baa ku xigay wuxuu yiri waaba joogaaba meesha ma aadi laakiin niyadan wali ka jooga soo dheereeya markii aan idin hor imaan Lana baa ku xigtay oo waxay tiri adreeska meesha ii soo dira Sadney waxay tiri hadii la soo fasaxay waa mahadsantiin waa soo socdaanu Danya waa wiil wuxuu yiri okay waa imaanaya laakiin filin sameeyaha meesha waa inaan noqdo yaan lagu qabsan camal Lizzie waxay tiri thanks for thinking of me waa ku mahadsantiin maadaama iga fikirteen ee ii soo dira adreeska meesha aan imaada moogi Alexna wuxuu yiri waa ku mahadsantiin dhamaantiin laftarkayga maadaama aan online ahay waa imaanaya haddana waa Isabella qofkii aan ka hor imaado waan ka soo xoranayaa bay tiri meesha ilaa uu soo gali maayo aadan oo u jawaabaya yiri waa wax laga xumaado xayl asagu soo dahbadan yahay ugu dambayn goobtii ay isugu imaadeen dhamaantood habeen bay ahayd fiid hore maadaama caruur yar yihiinna waxaa loo sheegay in ay ka soo hormaraan 9 intaan la gaarin ilaa 4 meelaha markii hore irida meeshay taagnaayeen markaani gudahay u galeen sababta irida u taagnaayeen waxay ahayd inay meesha cidla ahayd waxay islahayn waardiye iyo waxa jooga idi barbaariya ama idi ilaalinaya Sophia Isabella ku tiri meeshadna dhahaysana loo galado meeshana waxay cidna u joogtay waxay tiri Isabella ma ana ku iri meel baliyo galada goormayso ku iri meel baliyo soo hela milisna way qosleenay moodeen inay iska kaftamayso iyaduna mooday inay ku kaftamayaan oo iska galeen meeshii tabcan intaanay gelin kor albaabkii bay fureen kadibna way galeen waxaa la isku khilaafay marka albaabka aynu xirno iyo aynu deyno isagoo saas hore isagoo saas ma deyn karno belo dhan baa noo soo gali kartaa aynu xirno may haddaynu xirno balada gudaha ku jirtay naga celinaya miyaad waalantiin bay qaar dhahan haddii bala gudaha ku jirto maxaynu kasoo doonna meesha waxay iswalwaalaanba Isabella albaabka xirtay intii markii hore rabtay in la furo baa qaylisay oo isku dayday inay furaan laakiin furi kari waayey cilad farsamay moodeen marka iskana daayay way ku qanaceen inuu iska xirnaado horey way soo galeen meesha iyagoo fan qaadanaya iyagoo baashaalay iyagoo wada qosli sina waa iska dhalinyaro rag iyo dumar labada isku eegay tusaale ahaan Lini iyo Kaydo gees bay u taagnaayeen oo bacjabay soconayeen oo wada qoslayeen indho aan ahayn indhihii saaxiibtinimaan isku fiirinayeen hadda indhaha faantay guurso walaal Alexna meel xagaan uu Sophie gadkaadaya Isabella iyo Aadanna meel xagaas iyaguna fadhiyaan Lini meel cad iyadu wax iska duubanaysa qorshaha ay meesha u imaadeen inay hal muuqaal wada duubaan short movie laakiin intaan muuqaalka la gaarin qof walbaba inuu sii duubto wixii isagu uu markaa gooni u rabo way iscaawiyaan marka oo laba iskula duubaan marmarka qaar inkastoo wataan bahladii mobilada la saari jiray gurigii weynaa ee cabsida ahaa qadiimigan ahaa ee cidna ay sadeganayn bay ku kala fideen mid balakoonka kore aada mid qaybta hoose aada laba jikada aada saddex suuliga agtiisa aada kuwa baraagtada baashaska ag fadhiista
sagaalkoodiiba way kala fideen. tii Sophie ahayd oo kaligeed meel joogta ushii dheereedna saaratay moobilkeedii say muuqaal u duubto, laakiin si kadiisa muuqaalka uga dhex aragtay gadaasheeda inay yaalaan laba bir si yar oo qurux badan loo dhigay. way ku jeesatay labadii bir fiirisay way ka heshay, laakiin maadaamaysan dee iyadu lahayn ma aysan qaadin. intay ku foorartay ay fiirinaysay daawanaysay ay dareentay inay waxu ag mareen. soo kacday oo fiirisay wixii ag maray se waa eber. haddana istiri ku noqo daawo wixii aad daawanaysay labada birood qaado weliba markaan mid ay soo jeesatay waxa aragtay in halxba kaliya taalo gadaasheeda wada kama furna uu qof ka soo bixi karo. saasay tahayna birtii wax qaaday ma taqaano bay tiri adaa waalan dhafray ilmo yaraan dhafri jirin ba ahayd shaxda fahan maskaxdaada sawiranaysa. markaan sheekadu maskaxdaada sawiranaysa way soo dhaaftay maxaa yeelay shanqar caadiya oo toos bay gadaasheeda ka maqashay. oy moobilkeeda la soo baxday nalkii daartay meeshu mugdi bay ahayd. hadday wax yar hore ugu socotayna wax walbaba shib bay tiri waa banad isku soo baxoy oy qaylisay. hoos meeshii ay markii hore ka soo galeen bay isugu yimaadeen dhammaantood sagaalkiiba. meeshaan waxbaa ka khaldan bay tiri. Sophie baa tiri intii kala tiri wax noocma anagu waxba maana arkin. Isabella tiri ana amba wax arkay. maxaa aragtay baa la yidhi moojiye tiri waxba say ag maray. Sophie waxay tiri aan laftarkii ag mara. dhammaantoodna dheheen waxbaan ag maray laakiin wax balaayaa ma ahayn iska bac ordaysay waxay noqon kartaa oo shaqarta dareentaan bamba wax maniyadiin ku soo dhacay. xogaa yar la muran Alex baa yiri meesha inay cabsi noqoto waa la rabeeyay. maxaa yeelay cabsi baynu duubayna intaynu duubi lahayn midaynu annagu samaynay tu caadi am rabnaaba ka warrama. aadan baa yiri maandhow hanagan xinxinin waa ku sidee qalbi meesha kuma haysid buu yiri Alex. kaydu baa yiri idinka dhan waxba ag maray aniga muxuu wax ii ag mar waayay macna qof xun miya. Lina tiri show waa adiga wax dadka ag marmaray may buu yiri aan laftarkii waxba ag maray waa ka noqdo. iyadoo saa la wada taagan yahay dhammaantood baa hal mar qaab isku mid ah moobiladoodii oo dhan hal fariin uga shanqartay. haddii ay soo qabteen ay fureenna waxaa ku qorneed sida tan isku daya bal inaa baxdaan. haddii aad awoodi weydaanna isku daya wixii aad fariinaa samaysaan. waxa aan idin farayana waxay tahay kaliya un inaan idiin sheego qof kaliya inuu halkan ka bixi doono. markii ay inta akhriyeen buu Kaydo yiri ma idinka dhabbaa wax bilowday inaa brank nagu samaysaan hadda meesha waxaan ku duwaynaynaa miis ballanto hayn waxay bootadan iyo dhaartaan. Sophie baa tiri waa boota iyo dhaar anoo meesha duubitaan baa u imaan yaa qofkuna u ciyaaraya. Alex baa yiri u malayn maayo in la ciyaarayo. Isabella tiri malaha qof inaga mida baashaalayo number kale uu soo qaato oo qof walba wax u dira isku mar schedule soo isticmaalaya. Lina tiri hayay waa yara dhimasho ma rabo. Sydney baa tiri naa hoogti yaa dhimasho ka hadlay hal qof ma baxaya la yiri. aadan baa yiri maxaa la buuqaysan soo bax albaabka soo furnay uu dhaqaaqay dhankii albaabka aaday. Alex baa ka soo daba dhaqaaqay. Lina iyo Lani labaduna ka soo daba dhaqaaqeen iyo Sydney albaabkiis dheen fur nag waa fur waayeen. markii horena waa ay ki fur waayay xogaa yar oo cabsiya ba bilaabatay laakiin way isdajiyeen oo waxay dhaheen waa iska faqdhaq weey wax saas bilaaya ma kala yaacada qof walba waxa ka soo duubo.